Waqtiga cajiibka ayaana i siiyey farxad dhaba. Saaxiibtinimadeena ayaana noqotay mid aad u farxad badan. Inta badan sheekadeena waxay iga xusan jirtay in aan kaga sheekeeyo arrimaha jacaylka, lamaanaha isku faraxsan, jacaylka dhabta ah, dareenka uu leeyahay, farxadda. Xitaa mararka qaar waxay su'aali jirtay, haddii aad heshid jacayl dhaba, adigu maxaad samayn lahayd? Sidee baad ku farxad gelin lahayd? Ma soo jiidan lahayd qofka amaad ka dheeraan lahayd? Iyo su'aalo kale. Dhammaan aniga waxaan dareemayay inay yihiin su'aalo igu soo wajahan, weliba si dhaba aniga ii abbaaraya. Waxaan ahaa ruux kaga jawaaba sida ugu habboon, dhabta ah, farxad gelinaysa iyada, anigoo aanan ka dhigaynin wax khiyaali ah, aan ku soo jiidanayo oo keliya. Farxaddu waxay noo noqotay mid aad u macaan. Mar walba aan kaga sheekeeyo jacaylka, way dhoola caddayn jirtay, way qosli jirtay. Waxaan aad uga dareemi jiray inay sheekadan la dhacsan tahay. Anigana mar walba waxaan kaga sheekeyn jiray arrimaha jacaylka iyo weliba nolosha macaan ee lamaanaha sida dhabta ah isku jecel ay ku jiraan. Waxaa iga soo yaraaday sheekooyinka musalsalada iyo waxyaabihii kale. Waxaan noqonay dad sheekadooda ay aad ugu macaan tahay, mar walba isku soo xiisaya. Xitaa laga yaabee wakhtiga maalinta oo dhan, xilliga shaqada aanan ku jirin oo ku baxsha iyaduna si la mid ah wakhtigeeda oo dhan waxay igu hibaysay si caadi ah. Waxaan ahayn faraxsanayaal, weliba nolosha cajiib bay u tahay. Balse halka arrin oo iga qabyada ahayd ayaa ah inaanan lahayn wax xiriir jacayl ah oo dhanka gabadha iga jira. Keliya wax walba waxay ku soo dhammaan jireen qosol iyo walaalnimo. Waxaan isdareensiinayay inaan weli dareemayo daciiftinimo, maadaama aanan haysan farxadda jacayl oo liga dhawaaqayo bashimaha. Balse mararka qaar waxaan isku dhiirigelinayay inaan dareemayo jacayl dhanka gabadha ii jira, waayo waxay inta badan ka soo jilixday sidii hore, nacaybkii hore iyo weliba adeegii ay ka qabtay jacaylka dhabta ah. Farxaddii ayaana noo siyaaday. Waxaan inta badan isku dhiirigelin jirnay inaan annaga nahay dad isku faraxsan, isdareemaya, aanan isqiyaamaynin. Habeenkii dambe xilli saqdhaca ah ayaan telefoonka ka wacay. Waa iga qabatay telefoonka, waxaana kala hadlay arrimo fara badan. Laakiin arrinka cajiibka ahaa wuxuu ahaa markaan si kadis ah ayadoo qoslaysa aan ku idhi, qaaliyey, qosolkaaga anigoo aad cajiib igu yahay. Markaad dhoola caddaynaysid waxaan dareemayaa farxad oo dhan. Haa, waxaan dareemayaa farxad oo dhan. Waan ku jeclahay, weliba si dhab aan kuu jeclahay. Waan ku jeclaaday in ka badan intaan noloshayda jeclahay. I aamin, aniga waxaan ku hibeeyey qalbigayga, farxaddayda iyo dareenkayga. Si la mid ah waxaan rabaa inaan hibo u helo qalbigaaga, jacaylkaaga iyo noloshaadaba. Way iga aamustay, ma aysan ila soo hadlin, hadalna ma aysan i dhihin. Waxaan idhi dhowr jeer, hallow qaali, hallow qaali, hallow qaali, laakiin ma aysan jirin jawaab ay markaa ay siinaysa iyada. Keliya way aamusneed. Aniga aad baan u murugooday. Waxaan sameeyey waan aqoon waayey. Waxaan maqlayay koolka neef oo keliya, balse aanan hadal lahayn. Waxaa ii muuqatay markaa inuusan qadka xuslayn, mood uusan ka saarnayn, balse iyadu codka ay iga xiratay maadaama aan kadis uga dhigay arrimahan aniga kala hadlay. Allah, qalbiyadeena qaar waxbay noo sawiraan, haddana waxaa si dhab maahan. Xitaa mararka qaar waxaan u qaadanaa qof aanana jeclayn inuu si dhaba noo jecel yahay, si dhaba noo dareemayo, haddana khiyaalaya inaga noqdaan. Muddo ku dhow 10 daqiiqo ayaan koolka saarnaa hadal la'aan. Intaasina waxaan ahaa ruux ku celcelinaya, maad ila hadashid, maxaa kugu dhacay, maxaa qaldan qaali, wax xun maa ku dhacay, iyo erayo kale. Laakiin ugu dambeyn waxay soo hadashay mar qura. Anakuma caalantu xilkuma baadaye, caashaqana hawaayen yaaneeb soo bixin. Qaybta xigta la soco habeen dambe hadduu la idmo. Fadlan aragtidaada hoos inoogu reeb si aan u ogaano habka ay ku soo gaartay sheekadan. Mahadsanidin.